Waa kuma shayga caanka ah ee TikTok isticmaala. Aaladda TikTok waxaa la rumaysan yahay in 500 oo milyan oo qof ay si joogto ah u isticmaalaan daafaha caalamka oo dhan. Kuwa ugu badan waa dhowr iyo 10 ilaa 20 sano jir. Bartani oo muuqaallo yaryar oo kooban la geliyo waxaa aasaas u ah waxyaabaha la xiriira muusikada. Tusaale, dhalinyarada waxa ay u soo labistaan sida ay doonayaan, kadibna muuqaal ayay iska soo duubayaan iyagoo hees dhageysanaya. Muuqaalada noocaasi ah waxa ay gaaraan meelo fogfog. Hase yeeshee, sanadahan dambe waxaa bartani bulshada ay ku wada xiriirto ku soo biiray wadaaddo badan oo Soomaali ah, kuwaasi oo wacdiga iyo weliba faafitaanka diinka halka u maraya bulshada ku xiran. Sheekh Maxamed Ibraahim oo ku magac dheer Sheekh Kenyaawi waxa uu noqday wadaadkii ugu horreeyay ee inta la og yahay ku biira bartani ay dhalintu u badan tahay ee TikTok. Sheekh Kenyaawi ayaa rumaysan in dhalinta bartaasi ku xiran ay u baahan yihiin wacyigelin gaar ah si looga qabto xumaanta. Sheekhani oo wareysi gaar ah siinayay BBC-da ayaa sheegay in markii lagu ogaaday in uu barta TikTok ku soo biiray ay dadka badan la yaabeen. Waxa ayna dhaheen war sheekha ayaa u sheegay in meeshani aysan ahayn meel wanaagsan oo xumaanta lagu faafiyo. Laakiinse waxa uu sheegay in markii dambe ay ogaadeen sababta uu ugu soo biiray iyo waxa ujeedkiisu u yahay, kadibna ay soo dhaweeyeen. Dad u badan dhalinyaro waxa ay bartani u adeegsadaan in ay soo dhigaan muuqaallo 15 ilbiriqsi ah. Qaarkood heeso ayay dhageysanayaan, kuwana majaajilo iyagoo adeegsanaya farsamooyin aanan caadi ahayn oo muuqaalka ay ku soo jarjarayaan. Muuqaalkaasi waxa uu gaarayaa asxaab ay dadkaasi garanayaan iyo kuwa aanan la aqoon. Sida caadiga ah, dhammaan ciwaanada waa kuwo qof kasta uu daawan karo, inkastoo qofka ciwaanka samaystana uu dadka qaar ee isaga saaxiibadii ah uu ku darsan karo. TikTok waxa uu sidoo kale leeyahay qaab fariimo gaar ah la isugu diro, taasina waxa ay ku kooban tahay kaliya dadka asxaabta ah. Qof kasta oo ka weyn 13 sano ayaa adeegsan kara iyadoo waalidka ay xakameynayaan.